السلام عليكم asxaabta habeen wanaagsan ku soo wada caawa iyo ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay kubadda cagta oo ay ku jiraan warbixinada ku aadan kala iibsiga habeenka waxaan eegi doonaa sidoo kale warbixinadii ugu dambeeyay Real Madrid oo ay qayb ka yihiin sidoo kale Barcelona arrimaha ugu dambeeya Arsenal Championska dunida Chelsea iyo akhbaaraad kale oo ku saabsan guud ahaan ciyaaraha asxaabta subscribe-ka noo saar kuwa channelka cusub ku jiray share iyo like-tan isku dirkan saxabta kala ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina habeen wanaagsan asxaabtaay bal ciyaari baan igi doonaa soo gud barnaamijka waxaan qaadanaya Camil Light Product oo aad ka heleysaan weight gain-ka iyo weight loss-ka inta lagu sameeyo sidoo kale kuwa jirdhiska marna kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqanaya waxay arma ku kala leeyihiin dalka iyo dibadda caawiya ciyaaraha waxaa kamid ah nimanka la yiraahdo AC Milan ayaa ugu dambeyntii waxay gacanta ku dhigeen ninka la yiraahdo Luka Modric oo 50 maalmood ka hor lahaa AC Milan buu ku beeraya waa ka digay magaalada Milano tijaabadii caafimaad AC Milan buu maraya runtii oo AC Milan buu ku beeraya Modric hal sano heshiis baa la siiyay hadii loo bogo wax weyn waa loogu darayaa Madrid waxay yiraahdeen nin yahow waa yara duqooday dhaxdiina hadda waa ku wareersayno iyagu xataa suuq kaba bixin waxay isleeyihiin saan duum lagu dhaqi karo marka Modric waa ka tagay Milan oo tijaabada caafimaad buu iminku u marayaaba marka Rossoneri sidoo kale xataa waxay doonaysaa Dusan Vlahovic baa kamid rag ay doonaysaa inay Man United ku garaacdo marka waka dhinaca kale Arsenal hadaan u aadno kadib Maduki marka ay ku dhawaaqaan saacadaha soo aadan Arsenal haddana waxay u jeesan doontaa wuu runtii Aize aw Yogers balada Yogers ma isku dhiman warkiis Yogers soo ramaaday arkiisa marka waxa la leeyahay hadda Maduki haduu dhamaado Arsenal waxay u jeesan doontaa Aize Arsenal wali laba garab ay macnaheedu Arsenal imaanaya plus weeryahan ba imaanaya oo ninka la yiraahdo Victor Yogers marka Maduki waa ninka taageerayaasha laakiin Arsenal ku xumeeyeen Arsenal taageerayaashoodii ilaamin ninkan inuu ahaa ninkii ka soo tagay biladiisii ninkii ka soo tagay dabaaldegii dhamaa ee World Champions lagu noqonay ka soo tagay buu ahaa isaga xataa maxaa soo wala markii oo uu soo duulayay finalka oo biri ayuu ahaa oo kale oo London uu soo aaday marka macnaha wax iska ahayd maadaama ninkan uu goor rabo heshiiska la sii gaaray Arsenal inuu finalkaas ka soo dhameysto lagu daro liiska yani abaalmarinta la siinayo biladiisa uu qaato abaal sawirka koobka la ruuxay wax ka qayb ka noqdo war Donald Trump isku cariiray booskiisa biladiisa taageerayaasha wuxuu kaftay waxay leeyihiin biladii Maduki uu lahaa waxa qaatay inay Donald Trump jeeb ku qaatay markii saan uu gali oo soo hartay bilada ninkii ka iska lahaana jeebku iska gashtay war sawirku xaq u lahaa inuu ka qayb galo World Champions oo macnaha kooxda dunida oo koobka la siinayo Donald Trump cariirsaday waa tii madaxweynaha FIFA uu yiri war ka soo bax Donald Low ma yiri kan baxayo waxa arkaysa Donald oo la tagay madaxweynaha uu tagay dhahay war soo bax mar dhacwaasan ciyaartooy bisa loogu talagalay meeshan hoos oo gurmad Horyaalay waa ka dhib badnaa waa madax adeeg waa diidle iska baxay madaxweynaha FIFA dadkan wana la dabaaldegay uu macnaha koobka la galaa ciyaartooyga Chelsea way yaabeen Reece James wuxuu leeyahay waxa umaleynay kula inuu iska baxay inuu bixi doono umaleyn inuu kula xilliga dabaaldega laakiin waxaan gula toro meel u socnaa aragnay kadib kiya dhaha golhaya ninka meel uma socdee dabaaldega inuu qayb ka noqdo uu rabaa dhigo koobkan iska ruux kor isaga qaado ninka meel ma socdee James wax badan suuq kula inuu Donald Trump ka dhaxbaxo dabaaldega marka aw ninka Maduki xaq buu lahaa biladan maxay Arsenal aan raadin nimankan 5 ciyaar buu ciyaaray tartankan marka waxay ahayd ugu yaraan inuu iska sugo finalka goroshiis marka la gaaray inuu kaliya halkaas maalin iska soo dhameysto dabaaldeg ka qayb galo biladiisii qaato marka jawaabtu waxay leeyihiin biladiisii Donald Trump ayaa jeeb gashtay marka waa xanuun markii ugu horeysay koobkan la dhigay oo qaabkan loo bedelay ka qayb gal haddana nasiib daro yani waay biladaadii sidoo kalena wax weeyaan muuqaalkii iyo sawiradii haddana laga dhex waayo xanuun bay ku ahayd baa guleeyahay runtii ninka marka waa ka mid kale yani waxa uu awood degdeg runtii marka ninka noocaas baad ku dhagantii tahay Saudi Ferdinand uu dhahay waa ceeb ugu tahay Arsenal ninka ina saa u caaysan ciyaariyaan dhan oo da'yar oo idinku soo biiri saan u caayineysaan buur macna Maduki kala jeedan runtii marka still dhanka Yogers waad hadaladu waxa leeyahay runtii dhinacyadan u dhaxeeyay runtii dhamaad bay joogan ciyaaryahanku wakiiladiisu gooray London yimaadeen arintu waxa fududeeyay dalaalinta Arsenal san wax soo waday markay arkeen ayuu xisreen cunuga maskiinka yaan la ajarin dalaalinta lacag badan ay ciyaartooy ka qaataan macnaha kooxu ay ka iibinayaan ka qaataan marka waxay yiraahdeen warninkan kooxdiisina waa ganaax rabtaa oo Lisbon dagaal ay kula jiraan nimankaana wax ku soo daro waa laga laayahay war waxay yiraahdeen hatta dalaalkiina idin dhaafayna waxooga kamid ah warnimayo ninka dhameystira marka still Yogers waa CDC Arsenal ayuu imaanaya
oo wax weeyaan macnaha heshiiskiisu dhammaan warbaahinta ugu weyn kubadda cagtu ka faalo dhan way isku raaceen qarka ay u saareen labada kooxood inay ku dhawaaqaan in Arsenal kan ka heshiiyaan marka Yogresna waa ka xaalkiiso marka inta Arsenal baan kaga gudbaya World Champions kooxda dunida ugu fiican Chelsea madaxweynaha Nasir Khalifa oo dadka dhan ka soo yaabsanay oo kooxdiisa dhan ay soo ceebeynaysay Chelsea uu qorsay ugu dambeeyay uu qiray wuxuu yiri horta kooxda uu ku faanaya yiri laakiin Chelsea uu qalantii koobka Chelsea war nimankii dhama ee soo biibay ee soo wacdareynay maba ahanba nimanka xal si loogu baashaalay waxay garoonka qabteen bala waa soo sheegay oo u qalmeen nimankaas inay koobka guuleystaan marka Chelsea saas waa weliga ha ka shakin final ani ma aqaan Premier League markay ciyaarayso yani waa laga hoos bixin karaa laakiin final haday tahay Chelsea waa rageeyaan raganimo ayaa lagu yaqaan waa dagaalamayaan kulay 4 year ba sugaysa Chelsea oo markaad la ciyaari doontaan kooxina Premier League ya maalna Liverpool waxa la ciyaaray Chelsea waxa ka soo socdo kale maxamed qadar oo kale maxaa ku taqaanaa ya madax galwa markaas wuxuu ku leeyahay oh Liverpool iyo waxa ciyaaraya kooxda ugu fiican adduunka galabta Arsenal iyo waxa ciyaaraya galabta kooxda ugu fiican adduunka hal san si sagala ku waday afar sano soo socdo ilaa cibris uu gaarsiiyo madaxa la sii galay shabadaas inta ku suursanayaan ya Real Madrid iyo waxa ciyaaraya wuu runtii maxaa dhacay Madrid Real Madrid iyo waxa ciyaaraya wuu runtii iyo kooxda adduunka ugu fiican ya wax muran kama keeni kartid oo Chelsea marka 4 year soo aadan bay ay ahaan doonaan fiiri intaan final oo dhan fiiri ki Bayern Munich ay Champions ka qaadayeen ki Manchester Champions ka qaadayeen iyo ki xalay Chelsea waa laga wada shakinay ya waana ku guuleysteen koobka waana sababta aan ugu dhiirigelinaysay inaanba ku dhago Chelsea inay sameyn karto habeenada noocaas looga shakinayo runtii marka Enzo Maresco wuxuu ka mid noqday ardaydii Pep Guardiola oo wacdareynaya fiiri xalay markii wax yar ciyaarta ka harsaneed qosol girir ayaa ku dhacay waa iska fuuray Enzo Maresca Enzo waxa weeyaan waa shaqulay fiiri Enrique markii Pep Guardiola uu tababaruhu Barcelona ahaa 2000 maxaa raday Enrique waxa weeyaan markuu yani tababaraha Barcelona uu ahaa Pep Guardiola ya Enrique wuxuu ahaa tababaraha daayirka Barcelona buu ahaa okay Bayern Munich Pep Guardiola markuu tababar ka ahaa ninkan waxa weeyaan macnaha halkaas buu joogay isna kooxda daayirka uu maamulayay Ten Hag ninka lagu magacaabo company Pep Guardiola ka soo ciyaaray Enzo Maresco kooxdii daayirka Man City ayuu waday markii Pep Guardiola uu watay ilaa hadda Man City Alonso Pep Guardiola ka soo ciyaaray waqtigiisa Bayern Munich Arteta wuxuu ka caawiyo u ahaa Pep Guardiola Xavina Pep Guardiola ka soo ciyaaray marka waxa uu leeyahay ilma Pep Guardiola yaa dadka saan u wareerinayo adduunka qasay u runtii yani waa ka Enrique uu Champions la soo afjaray laanta kooxda tan PSG marka wax weeyaan Arsenal ba uu ku ceebeysan London kooxu dhan reer London koob bay soo hoynayaanba waliba laba tiim oo kamid ah koob weyn bay soo hoyeen ya maxaa raday Chelsea iyo nimanka la yiraahdo Tottenham koobkii Europe ya iyo kii dunida ay soo hoyeenba marka waka marka warigeedba Chelsea waxay ahayd koox aan laga shaki karin yabay ahayd runtii fiiri sanado waxa jira ma taqaana Chelsea aadan isdhigi karin way qaadi kartaa koobka ay qaadeen waxa jirtay bari Barcelona ee awood badnayd Chelsea aan koobku qaaday waxa weeyaan inaba caadi maan u ahayn waligoodba fiiri waqtiyadan dhama fiiri laba ku timaaday Barcelona wax laga qaban karin laakiin Chelsea arigaha ku dhufatay Bayern Munich oo waqtigeedii ku jirtay idana Bayern Chelsea koobka qaaday Man City oo kacsanna waxa ka koobka qaaday Chelsea PSG oo kacsanna Chelsea koobka qaaday ni kooxuhu markood ugu fiican xataa haday yimaadaan oo Chelsea ku yimaadaan ama waqti ugu fiican ku jiraan Chelsea baa ah kooxda ma taqaana soo afjari karto marka taasna waa taa laakiin marba ciyaartu ever ido marayso hadii Chelsea goolkaas laga dhali lahaa daacadii way barix lahayn waana u dhamaan lahayd waa kubad ugu koreelo badbaadina ma harta oo sas loogu baasay mid kale asaa dhaxda ka galay mooyaane Chelsea halis bay gali lahayd marka madax daashku warin caadi ahayn ya waliba mid roos u qalqaaliyay oo Portugalku hadda waxa leeyahay armeyba saameysaba finalka koobka maxaa raday Super Cup Europe ay la ciyaarayaan Tottenham intaas waa inta ninkii Vinicius Junior asaga ugu dhamaatay war ayaa sheegay heshiiska isaga Madrid wadalo u socday inay dib u dhaceen socodana sidoo kale warba hadda sheegaya in ninkan macnaha mushaaraadka uu dalbaday darteed Madrid in wax ka qaban karin sidoo kale Madrid ninkan ayba ka shakisan tahay bandigiisa hoos maray xal dhaxdaas Champions League wuxuu u tartamayay Ballon d'Or
xaga la soo dhaafay goolo yar ayuu dhalay horyaalka marka wadahadaladu hadda way istaageen baa runtii Vinicius Junior Madrid ya marka Vini Sacuudiga ayaaba doonayay in World Cup-ka 2034 ay macnaha ka hor ninkan inay keenstaan bay doonayaan si uu halkaas yacni weli Sacuudiga u soo jiito dunida oo dhan kubadda cagta marka la eego ambassadorna uu ugu noqdo marka Vini markii Madrid waxa laga yaabaa lagu leeyahay runtii inay kala tagi karaan markaan Vini wax badan lama taabtaan kama ah Madrid Sacuudi maanta macalinku waxa lagu amray cayaaryahan walba iska Real Madrid-ka geli ya marka waa ka xil Ibrahim Konate waxa weeyaan weli uu doonayo ku beerida Madrid xaga soo socda siiska dambe xilligan oo kale Real Madrid ugu beeri rabaa Liverpool way ka wareeshay waxay yiraahdeen hadda Firiiq ku bixi lahayd hadda waan ku iibinaynaa camal iyo taageen runtii marka Ibrahim Liverpool wuu khasbaya oo wuxuu leeyahay anigu heshiis ma siixay ilaaba sidii Arnold ugu baxay oo kale ayuu kan ugu baxaya wato madaxweynaha Madrid dhahay ya anu Liverpool waan jeclahay wuri aadan isugu fiicana wuri macnaha ciyaaryahanada ka daldashaa waa macnaha waka nimankaas dhanay waaweynka ah ka war Madrid day timaado meesha waxa kama qaban karaan ka war ma hor istaagi karaan ka war waka dhinaca kale waxa weeyaan Lamine Yamal waxa la yiri dabaaldegan Georgia intaan kadib dabaaldegaaga maalinta dhalashada waa qaadatay isu diyaariyay macnaha seasonka wariyaha macalinka ma arkay oo Barcelona sida ka dhahay xilli Lamine heshiiska hadda uu Barcelona qalabka ku noqonayo cayaaryahanka ugu mushaaraadka badan kooxda ya Barcelona way ku dhawaaqi doontaa runtii ugu yaraan arbacada heshiiska ninkan kan ugu mushaarka badan tiimku buu noqon doonaa hadda ninkan waa ninkii 16 sano jir ku maamulay ciyaarihii Euro oo hal sano ka hor ya Spain waa tii ay mataqaana Ingiriiska garaaceen Euro ku guuleysteen Lamine Yamal oo 16 sano jirna ma ilaabi kartay Euro 2024 inuu ahaa ninkii hal gool lali 4 gool caawi 16 sano jir waade dadka la qasay marka hadda 16 sano jir la sii noqday maskaxdiis waa si dhanbalmaysa la macnaha ya marka taas waa ta xilli ay habeenka soo kale ugu beegan tahay Messi markuu ku guuleystay in sanad ka hor Copa America markoodii 16aad xilli uu habeenka dhaawac intuu soo gaaray loo taaro u ciyaarto go'aamiye xitaa marka waa ka Barcelona kala Sacuudi waxay soo bandhigeen wiilkooda Rooney waa ku jido Rooney ayaa loogu qormay jida lambarka magaciisa ilaa heshiis lagu la sagaal ninkan Barcelona kugu duugeen Barcelona waxa la Rashford way ka fiirsanayaan nin kale oo garab inuu ku darsadaan bay doonayaan kadib ninkan oo garab ay keesteen ilaa yaraantiisii Barcelona ay wiilkan u jecel u qabayo marka waa ka inkastoo Angel Di Maria iyo Gracie iyo Leonardo isku gool ahaayeen haddana Gonzalo Garcia waxa uu noqday ninka ku guuleystay goolinta dhan ee koobka kooxaha adduunka loo doortay runtii marka ninkan waxa la arkayaa inuu yahay academic ajaib oo ka soo dhaxbaxaya nimankan la yiraahdo Real Madrid wariyahan kale xataa suuq ka raadinay way joojiyeen isaga hadda xoog yacni ku haystaanba xilli Arsenal heshiista 7 milyan ay kula gaareen ciyaaryahanka Valencia Mosquera waxa weeyaan ugu dambeyntii ninkan wuxuu qayb ka noqonayaa difaaca birta Arsenal labada nin baa lagu ilaalinayaa Saliba iyo Gabriel marka ninkaas labada koox way heshiiyeen baa ninkan waa ninka loo Arsenal noqonay wareecdu waa kacsan tahay ya cid si caaynaysay la waa ka Yogursa Imana easy hada lagu maqnaana lagu yiri kana la dhameeyna maduuke wax kan ba hada lagu daraya war waa ka xilli biishi aan raadey Galatasaray Napoli wali maanta isku laabtay mar kale waxay wali rajo doonayaan inay Osimhen gacanta ku dhigaan nimankan reer Galatasaray halka laacibka City Makate Frankfurt Germany uu booqday waxa laga yaabaa inuu ku biiro halka kaayo ninkan boos joogta la'aan ayuu Manchester ugu cararayayo Pep Guardiola wuxuu yiri ya ciyaaryahanada halaga kala yareeyo xilli Manchester United saacadii ugu dambeeyay la sheegay gool hay in suuqa doonaan maadaama dhaawac uu soo gaaray raado Onana marka ciyaarta Arsenal shaki baa la gelinaya bilowga marka waxa la leeyahay gool hayaa Botafogo John Victor ay doondooni indhaha ku hayaan baa runtii maadaama ninkan uu seegi doono ciyaaraha isdiyaarinta walow Turkiga mid kale haystaan ninkan bay doondoonayaan baa runtii Manchester markii horeba gool haya fiican bay rabeen marka Brazil yaanku oo koobka adduunka wadara ka dhigay